ما جعلد إن لغو حنتو ددك حمان ما جعلد إن لغو يسو ددك هيسين ما جعلد شرفتادي كرامتادي maamuuskaaga milkaaga ilma laga dhaco dadka karaamadooda iyo sharaftooda meel ka dhicin ma jeclid dadka in lagu diro dadka ha ku dirin ma jeclid in bulshada laga irdheeyo dadka bulshada ha ka irdheyn wax kasto naftaada aad la jeceshay walaalka la jecelo waa badbaadada adduunyo ta aakhirada nabigu saddexda qodob ku xiray nada munadi rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam salata jami'a فاجتمعنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ما من نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته خير ما يعلمه لهم وأن ينذر أمته شر ما يعلمه لهم وإن هذه الأمة جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة يرقق بعضها بعضا فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه حديث عظيم كولا ليال في صحيح مسلم كسغن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما وحيري رسول كان الراعني صلى الله عليه وسلم سفر تمنى ميل بانو دغدي dadka way qaybsameen mid geed hoostiisa seexda mid taandhadiisa hagaajista mid leebkiisa caar dhuubta mid neefkiisa daajiya waxaan maqalnay dhawaaqii rasuulka kaleey salaatu wasalaam oo ku dhawaaqaya war salaadu waa mid dadka ururisa waa kelmad ay ku garan jireen saxaabadu inay arin jirto dabadna rasuulka hareerihiisaan ku soo xoonay buuri wuxuu nabigu nagu yiri kaleey salaatu wasalaam nabi aniga iga horeeyay oo kaste oo yimid waxa waajib ku ahayd inuu ummadiisa u sheego wuxuu ogyahay khayra inuu ummadiisa uga digo wuxuu ogyahay sharra ummadaydanna badbaadadeeda iyo wanaageeda waxa la dhigay qaybteedii hore ee tagtay oo saxaabadii taabiciintii taabiciinkii oo dadkii quruntii loo yaqaan al-qurun al-mufaddala ummadayda aakhirkeeda waxa ku dhicigu nabigu yiri balaayooyin iyo arrimo aan la yaabtaan oo garan weydaan fitna iman doonta muuminku oran doono tanaan ku halaagsamaya markaasay fiidmaysaa fitna kala iman doonta oo barbarku ka dambeeyo uu ka culus yahay wada Soomaalidu tirada adduunyadu shalay dhaantay mooyee maanta dhaanta ma laha waxaan uga soo xadiidka inta dambe hadaba wuxuu nabigu yiri markuu inta soo masaa'ib inta soo dhibac sheegay wuxuu rasuulku yiri qofka jecel in naarta laga badbaadiyo jannana la geliyo qof kasto inaga midii masaa'idkan wuxuu soo galay waa inta Sooma in naar laga badbaadiyo jannana la geeyo qof kasto inta jecel buu nabigu yiri geeridu ha u timaado isagoo rumaysan ilaahay iyo maalinta qiyaamaha dadkana hawla yimaado wuxuu jecel yahay in loola yimaado qofna ma jeclay in la caayo dadka ha caay qof ma jeclid in lagu xanto dadka xaman ma jeclid in lagu yaso dadka ha yasin ma jeclid sharaftaada iyo karaamadaada iyo maamuuskaaga iyo milkaaga ilma laga dhaco dadka karaamadooda iyo sharaftooda meel ka dhicin ma jeclid dadka in lagu diro dadka ha ku dirin ma jeclid in bulshada laga irdheeyo dadka bulshada ha ka irdheyn wax kasto naftaada aad la jeceshay walaalka la jecelo waa badbaadada adduunyo ta aakhirada nabigu saddexda qodob ku xiray ha u timaado geeridu isagoo ilaahay rumaysan iyo maalinta qiyaamaha dadkana hawla yimaado wuxuu jecel yahay in loola yimaado waa qaacida cadiima weeye naftaadu baad ku maalaysaa markaa qof kasta ma jecla in la caayo qof waliba inuu dadka cayn bay noqonaysaa marka bishan ramadaan waa bil intaaba aynu xaqiijin karna walaalayaal dadkii lagu imtixaamay yaani waxa weeye social media-ha ee masaa'ibta iyo xumaha iyo cayda iyo qurunka iyo naxliga la dhex fadhiyo waa bil ay khayr ku bedeli karaan taraawixda ku faafi dacwada ku faafi sadaqada ku faafi wanaaga ku faafi xumihi naftaadu soo shaqaysatay mayd bishani waa bishii la istahirinay naftaada tahiri bilaha dambana inaad sidaa ku daa'imtay ilaahay ka bari subhanahu wa ta'ala ilaahay khayrka diya ka aakhirada wa inuu waafajiyo sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam